إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. waxaan hore idinku sheegnay masjidkan in dhinaca qorax soo baxa uu ka jiro boos u baahan in masjidka loo iibiyo booskaasoo lagu qiimeeyey $30,000 booskaasoo la doonayo in masjidka lagu ballaariyo maadaama dadkii ay qoraxda ku tukanayaan maadaama dadkii ay ku tukanayaan xilliga roobabku ay jiraan roobku uu saameynayo dadkii tukanaya waxaan idin sheegaynaa in booskii la iibiyey oo walaal dadka muxsiniinta ka mid ah $30,000 uu shubay masjidkiina fursadaas taagnayd walaalkeen uu ka faa'iidaystay waxaa marka dadka muxsiniinta u furan dhismihii masjidka oon doonayno ilaa dabaq 2 dabaq 3 dabaq inta mar walbaba tabartu ayna gaarsiiso inaan masjidka caymiska ku yaala agagaarka iskuulka Aswayaal waxaa fursadaha hadda noo furan ay yihiin inaan masjidkii dhismihiisii aanu ka qayb qaadano inta markaa daanahay dadka Soomaaliyeed maanta waxaanu kaga baahanyahay inaanu ku daysano ruuxa askarigiisa oo muxsinka oo qaatay dhulkii masjidka lagu siyaadinayay kaligiis iibiyey ilaahayna ka iibsaday naftiisa oo talxiyada sameeyay inteena kala waxaana saaran marka inaanu masjidka aanu